isku-aadka koobka qaramada qaaradda Afrika ee mini football ayaa la sameeyay sida uu faahfaahintan ku eegi doono Cabdixafiid Zaimka. waxaa dalka Liibiya lagu sameeyay qoratuurka tartanka qaramada qaaradda Afrika ee ciyaaraha mini footballka kaasi oo sidoo qorshe yahay ka bilaaban doona garoomada kala gedisan ee dalkaasi Liibiya 5 bisha May ee soo socota oo halka uu ka bilaaban doono isla kana xulalka ka qayb galaya tartanka isku arki doonaan halka lagu qoratuurayay tartankan qoratuurkiisi waxa goobjoog u ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee dhanka ciyaaraha mini footballka isla kana ka tirsan madaxda qaaradda Afrika ee ciyaaraha mini footballka Cabdulxaq Maxamed Axmed oo halkaasi Soomaaliya wakiil uga isla markaana isagu goobjoog uga ahaa Soomaaliya sidoo kaleba sameynta dhanka qoratuurka oo isla markaa uu ku jiray guddiga markaasi qaaradda Afrika ee qoratuurka sameynayay si kastaba waxa markaasi loo kala qaybiyay 9 xul ee ka qayb gali doona tartanka ciyaaraha markaasi qaramada qaaradda Afrika ee qaybta markaasi mini footballka ilaa 2 group waxaana groupka markaasi wada galay oo ku wada jira xulalka Tunisia, Kenya, South Africa, Nigeria iyo sidoo kale xulka Senegal waana 5 markaasi group qaybtaasi ee group B oo Soomaaliya nasiib u yeelatayna waxa markaa ku jira martigeliyaasha Liibiya xulka dalkeena Soomaaliya xulka Ivory Coast sidoo kale xulka Ghana xulka Soomaaliya ee dhanka mini footballka ayaa mar waliba isagu hormood u ah xulalka caalamka ee iyagu ka qayb gala tartamada qaybta mini footballka iyadoo la xusuusan in Soomaaliya ka qayb galeen tartankii World Cup ee qaybta mini footballka ee kal hore lagu qabtay dalkaasi Tunisia waxaana madaxda xiriirka Soomaaliya mini football garahan xogaha xiriirkaasi Xaaji Aadan Cabdulle Mahdi oo sheegay in imika ay markaasi xiriirkooda u wado dadaal iyo diyaargarow markaa ku aadan sidii loo heli lahaa ciyaaryahanno markaasi xulka Soomaaliya matasho oo meel walba markaasi caalamka ka kala yimaada kuwa oo imika markaasi uu sheegay in ay geyn doonaan dalka Liibiya 5 bishan ay rasmi uga qayb gali doonaan tartankaasi qaramada qaaradda Afrika ee qaybta mini footballka. mahadsanid Zaimka. kooxda kubadda cagta AC Milan ee ka ciyaarta horyaalka Talyaaniga ayaa ka cabsi qabtay in ciyaaryahankooda Donnarumma ee goosha u ardiyeeya uu isaga tago kooxdaasi sida faahfaahinta warkan ay inoogu eegi doonto Naciim Carabi Cabdulle.